Hi, welcome to Delcy. If you're new to the channel, please make sure to smash the subscribe button and to press the bell icon in order to get every valuable video that we post. If you have done all, let us get started. The most valuable video of today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan akhyaarta ku xiran janaalkeena Delcy. Marka hore waa salaamantihiin. Marka xigta saa ogtihiinba videogii hore oo introduction ku waxaan kusoo baranay qaabka namejib domain looga gato. Haddaba videogan waxaan ku baran doonaa qaabka domainkaagii hosting looga xiro oo waliba si free baan ku baran doonaa. Qaab oo hosting looga xiro namejib domainkii aan ka gadanay waynu isla arki doonaa step by step. Fadlan hadday tahay markii kugu horeysay oo janaalka aad soo booqato ha hilmaamin inaad barta subscribe-ka aad riixdo janaalkana aad like gareyso si akhyaar fara badan uu u gaaro. saas oo kale gambaleelka aad furatid si wax walba aynu soo dhignay ay ku soo gaaraan. haddii aad tahay akhyaarta nala socotay oo introduction-kana soo qaadatay namejibna domain ka soo gadatay, let's go ahead aan hosting u helno website-keena. marka hore waxaynu imaanaynaa haddaad telefoon isticmaalaysid caadi waaye waa ku gadan kartaa namejib domain waana ku hosting-kan waa ku isticmaali kartaa, waa wax walba iska caadi. marka aniga hadda waxaan isticmaalay PC-ga computer-kan isticmaalay. kadib markaan halkan baynu imaanaynaa waxaa halkan ku qori doontaa infinity free baad ku qori doontaa, laakiin aniga hadda waxaan isticmaalay infinity saa ujeedaan waxaa ku qori doontaa infinity free baad qori doontaa. kadib saa ku soo baxaayo. haddii kale linkiga description-ka kusoo dhigi mise waxaan soo dhigi telegram channel-ka kusoo biir. anyway waxaan sameynaynaa hadda marka hore waxaynu ka helaynaa namejib domainkeeni waxaan u heli doonaa hosting oo free ah. waxaana ka heli doonaa website-kan loo yaqaano infinity free aan hostingkiisa ku xiri doonaa. haddaba anyway waxaad dhihi doontaa barta ay ku qoran tahay register baa iska diiwaangelinaysaa. adiga waa ku cusub tahay laakiin ani kuma cusbi, waxaan dhihi doonaa sign in baan dhihi doonaa. marka anyway waxaan sameynaynaa akhyaarey register markaad dhahdid kadib wax walba waxay noqonayaan waa diyaar uu isoo geliyey. mardhow ay ugu dambeysay aan soo galo. marka saa ujeedaan ani hadda waan soo galay, laakiin adi hadhow waxaa waaye qaabka loo sign up gareeyo aad iyo aad ay u fududahay. waa sign up gareynaysaa, wax walbana way iska fudud yihiin. marka waxaad sameyn doontaa markaa sign up aad dhahdid keliya dhufanaysaa. anyway waxaad sameyn doonaa ani hadda saan waan soo galay oo adi keliya waxaad sameyn doontaa log in sign up baad dhihi doontaa. marka sida la iskaga diiwaangelinayo waa iska fududahay akhyaare. waxaan hubaa in aad dhammaantiina aad garan doontiin oo ay idinku adkaan doonin, wax walbana ay diyaar noqon doonaan. marka akhyaare waxaan sameynaynaa keliya waxaynu ku dhufan doonaa barta ay ku qoran tahay create account. markaa sidaan usoo geshid waxaad ku dhufanaysaa create account. waqtiga inuu dheeraado marabi. annaga hadda domain baynu leenahay, custom domain baynu ku dhufanaynaa. kadib custom domain markaa ku dhufatid custom domain baa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufatid custom domain waxaa kusii dhufan doontaa barta learn more ay ku qoran tahay. haddaba learn more barta ay ku qoran tahay markaynu ku dhufano let us see what will happen. waxbaan halkan baa wax kasoo qaadan doonaa. intiiba halkan uu loading sameynayo waxaa sii sameynaysaa namejib account-kaaga ayaa sii galaysaa. account-kaaga namejib markaa sii geshid kadib waxaa ka dooran doontaa saa ogtihiinba magacii aan gatay waa kana waa xaafid.com. haddaba waxaan sameyn doonaa manage baa ku dhufanaysaa. manage markaa ku dhufatid waxyar screen-ka aan dheereeyo. manage baa ku dhufanaysaa. kadib manage markaa ku dhufatid midkaan ugu horeeya waa active lama rabo. so anyway hoos soo soco. bartaan waxaa ka dooranaysaa manage waxaa ka dooranaysaa bartaan ay ku qoran tahay namejib basic DNS barta ay ku qoran tahay ka dooranaysaa. kadib halkaas baynu ka dooranaynaa. saa ujeedaa marka custom DNS markaynu ka dooranay halkan baynu wax kusoo baasigareyn doonaa. halkan aan kasoo qaadayno. anyway aan kusoo laabano kii hadda loadingka sameynayay oo noosoo loadingka noo soo dhahayay. hoos baynu soo soconaynaa. kadib waxaa soo qaadaynaa DNS-kan baynu soo qaadi doonaa oo ah halkan baynu koowaad baynu copy soo dhehaynaa. control C copy baan dhehani. control V
sorry waxyar baa iga qadome gacanta iga dhacday marka aan kusoo laaban kii koowaad waan koobiyeysanay kii labaad control C kadib name domain ku laabo qaybta labaad haddana ku paste garee ani waxaan u maleynayaa inay ila socotaan oo step by step wax walba ay ula socotaan kii koowaad halkaan ns1 halkaan aan ku paste gareynay tii qaybta sarreysaan ku paste gareynay tan kalena qaybta hooseysan ku paste gareynay marka waxaad dhehaysaa halkaan tig ay ku qoran tahay meeshaan waa idin soo weyneyni bartaan baad sax saari doontaa saa ujeedaa markaa sax saartid kadib domainkan baynu coobi soo dhehaynaa step by step igula soco wax walbana way fudud yihiin wax adag ma jiro meeshaan marka wax walba way fudud yihiin coobi kadib markaan coobi soo dhahno waxaynu kusoo laabanaynaa akoonkeennii baynu kusoo laabanaynaa waxaan ka dooran doonaa meeshii haddaa baynu kusoo laabanaynaa haddaa waxaynu ku dhufanay bartaan markaynu subdomainka markii meeshaan inoo imaaday custom domain markaynu ku dhufanay haddana waxaan ka dooranay land more haddaba land more hadda ma rabno waxaan ku dhufan doonaa bartaan ay ku qoran tahay your domain name domainka aynu soo koobiyeynay baynu v control v ku dhihi doonaa oo aynu ku paste gareyn doonaa kadib waxaynu dhahaynaa check availability in domainkan uu jiro oo DNS kaagii lagu xiray ma fiir baynu dhihi doonaa haddaba everything is ready now saa ujeedid the domain xaafid.com is available domainkii waa available baa lagu dhahay kadib wax badan ma sameyn doontid meelahan passwordka waxaa ma dooran doontid kaliya waxaa ku dhufan doontaa marka ay ku qoran tahay create account your account has been created with saa ujeedid akoonkaagii waa lagu generate gareey oo waa lagu abuuray haddaba waxaa rabna hadda waxaa wax kale ma aha qaabkeen ku helnaa SSL certificate haddaan idin sheego waxaa waaye HTTPS websitekaada inuu macnaha secure noqdo kufulkan aa ujeediin hadda oo kale websitekaada inuu lahaado baa SSL certificate kaasaa la dhahaa sideen SSL certificate aan ku helnaa haddana waynu ku dareynaa cashirku is wada wataa hal mar cashirkeena labaad waxaan ku bilaabi doonaa wordpresska baynu kicin doonaa laakiin hadda wordpresskii waynu ku install gareyn doonaa SSL certificate waynu ku sameyn doonaa SSL certificate markii loo sameynayo waxay qaadanaysaa waqti dheer oo halkii mid markaa sameysid baa hal saacadood sugaysaa haddana mid kalaa sameynaysaa 2 saacadood saas camal waa laakiin videoga si usoo gaabto waqtigaas dhan uusan u qaadanin skip baanu ku sameynaa waan jarjari marka waxyar ka bacdi waan jari kadib saasa sameynaa haddaba akhyaarey si aynu u helno SSL certificate-ka si aynu u helno waxaynu ku dhufan doonaa barta ay ku qoran tahay SSL certificate SSL certificate markaynu ku dhufano waxaynu kasii dooran doonaa hadda saa ujeedid midkaani issued waa midkaani waa sax haddaba waxaa ka dooran doonaa barta ay ku qoran tahay deeqsi.com hadda saa ujeedid mar horeynu ku xirna SSL certificate-ka oo wax walba waa sax haddaba waxaan dooran doonaa new SSL certificate barta ay ku qoran tahay kadib waxaa kasii doontaa kana idinka qariyo in wax idinka qarnaa laga yaabo marka waxaan sameyn doonaa new SSL certificate markaad halkan waxaa gelin doontaa domain namekaagii aad soo koobiyeysatay haddaba domain nameka aad soo koobiyeysanay annaga waynu garanaynaa oo waa xaafid.com control v ku dheh xaafid.com markaynu control v ku dhahno waxaan rabnaa inaan SSL certificate-ka aan ku sameyno continue ku dhufo waxaan arki doonaa marka please use an SSL certificate provider xaafid.com waxaan dooranaynaa SSL certificate-ka ugu fiican aan dooranaynaa haddaba shirkadaani iida baa waxay ku recommended garaysay midkaani oo ah latest encrypt kan baynu ka dooran doonaa oo ah use provider baynu dhehaynaa markaynu ka doorano haddaba sidaa ujeedaan your SSL certificate has been created haddaba anyway is ready maxaan sameyn doonaa marka hadda waxaynu kusoo dari doonaa DNS record baynu kusoo dari doonaa marka wax weyn ma aha isagana DNS record baynu kusoo dari doonaa waqti bay qaadanaysaa iyadana haddaba akhyaarey si aanu ugu soo darno cname-ka hadda aa ujeedaan oo ah not ready the cname not ready waa idin soo weyneyna bartaan marka cname-ka si aanu ugu soo darno waxaynu sameyneynaa waxaynu ku laaban doonaa waxaynu ku dhufan doonaa accounti kan aynu isku xirno once again marka waxaynu ku dhufan doonaa
barta ay ku qoran tahay account tab open mid cusub ii furani. marka anyway waxaan sameyn doonaa sidaan baad sameynaysaa adiga. kadib waxaad sameyn doontaa barta ay ku qoran tahay halkii noola furay ku dhufo. kadib waxaan kasii dooran doonaa anyway waxaan ka dooranaynaa anyway waxaan marka account aad ku dhufatid accountiga markaasaan ugu dhufatid kadib halkaan bay ku keenaysaa xayeysiintaan aynu isku xirno. kadib halkaan bay ku keenaysaa waxaa ka dooran doontaa websitekaagii. websiteka waa kan waa midkan xaafid.com ka ah. bartaan baynu ku dhufanaynaa oo linkiga ah. kadib halkaan buu noo redirect gareyni. waxaa ka dooran doontaa control panel markaynu ku dhufano wuxuu sameyn doonaa waxyar baynu sugaynaa intuu loading sameynayo. marka anyway saa ujeedin hadda loadingka buu sameynaya. waxaan dhihi doonaa approve baynu dhihi doonaa I approve markaa ku dhufatid thank you the panel will now load. hadda loading buu sameynayaa panelkii control panelkii. anyway halkaan waxaynu ku qori doonaa hanoo soo kaco. marka waqti wuu iska dheeraanahayaa kaliya inaad dulqaad samaysid. haddii oo videogan uu yahay midkii aad raadinaysa inaad dulqaad samaysid. haddii oo video uusan ahayn midkii aad raadinaysana inaad skip iska dhaadido aad ka baxid. sidaasaan kugula talin lahaa. kaliya waxaad sameynaysaa halkaan baynu waxay ku qoranaa cname baynu ku qoranaa cname. haddaba markaynu ku qorno halkaan iyadaa noo soo baxday cname recordkii isagaa noo soo baxay. close. haddaba saa ujeedaan wuu noo soo baxay. waxyar aan iska yareeyo. marka hadda waxaan sameyn doonaa waxaan ku laabanaynaa bartii hadda oo aynu ka dooranayna SSL certificate-ka. waa kan sidaa ujeedaan bartaani baynu kusoo laabanay oo SSL certificate-ka aynu ka dooranaynay not really meesha lagu dhaha hadda dhow. marka waxaynu sameynaynaa record name baynu soo koobiyeynaynaa. record name markaynu soo koobiyeyno saa umaleynayo waa ila socotaan control copy dheh control C. anyway waxaynu kusoo laabanaynaa no not this one carabkan. marka waxaynu sameynaynaa halkaan baynu waxaynu sameyn doonaa past ku dhahaynaa control V laabo. waxaa soo koobiyeynaysaa haddana domainkii baa meesha gelinaysaa. isla aragno mid walbo control C. domainkii baynu soo koobiyeysanay not this one. domainkii saa ujeedana isaga automatically isku keliyey xaafid.com. destinationka aynu soo koobiyeysan haddana destinationka waqtiga inuu aad iyo aad inoo haayo baan dareemayaa. marka dhalinyaro inaa iska dulqaatan sameeya. haddii videoga uu ku xiisgeliyo xitaa hal saac hadduu socdo waxaa kaaga muhiimsan waxaa ka faa'iidaysa adiga. anyway waxaan sameyn doonaa destinationka baynu soo koobiyeysanay. halkaan baynu ku baasigareyn doonaa control V ku dheh. destinationka waynu ku baasigareynay. haddaba waxaanu ku dhufan doonaa barta ay ku qoran tahay add. saa ujeedaan waa noola sameeyey waa noola sameeyey. waxaynu kusoo laabanaynaa barteeni hore baynu kusoo laabanaynaa. markaynu barteeni hore kusoo laabano haddaba saa ujeedaan please complete the domain verification. please note waxaa ogaataa that the DNS change can take a few hours to take effect. DNS change-ga lagu sameynayo waxay dhici kartaa adiga muddo hal saacadood gudahooda bay ku dhici kartaa. marka hal saacadood baynu sugaynaa. hal saac kadib baynu isku soo laabanaynaa. waan arki doonaa in nala soo approve gareeyey iyo in kale. haddaba videoga aan jaro kadib hal saac waan isku soo laabanaynaa. waan is arki doonaa. waxaa marka anyway waxaa sameynaynaa hadda hal saac kadib waan isku soo laabanay. waxaan sameyn doonaa barta ay ku qoran tahay refresh baynu refresh dhahaynaa. kadib refresh markaynu dhahno waxaan isla arkaynaa in cnamekii in noola soo ready noolaga dhigay. haddaba saa ujeedaan current destinationka wax walba waxaa waa ready. hadday ready maysan ahaynin waxay ahayd not found iyo waxaas camal ay ahayd. haddaba waxaa waaye waxaan sameyn doonaa waxay tahay certificate-ka baynu request gareyn doonaa oo waxaan codsan doonaa certificate-ka. kadib certificate markaynu codsano iyadana waxay qaadan doontaa muddo 10 daqiiqo oo kale ah misana 5 daqiiqo hadday ugu badato
marka 5 daqiiqo ka bacdi isku soo laaban doonaa haddana mid walba midii koowaad waxay qaadatay hal saac midaan waxay qaadanaysaa 10 daqiiqo 5 daqiiqo marka isku soo laabanayna intiina laga ready nooga noqonayso walba diyaar ay nooga noqonayso video weyn jarayna doona haddaba akhyaar hadda waxaan sameyn doonaa waynu fiirin doonaa in refresh baynu dhahaynaa haddii la diyaariyay iyo haddii kale haddaba refresh baynu dhahnay waa boom saa ujeedaan waa diyaar waa noola diyaariyey marka haddaba privacy key meesha ay ku qoran tahay privacy key and certificate barta ay ku qoran tahay baynu ku dhufan doonaa saa ujeedid certificate-ka aynu codsanay waa noola diyaariyey wax walbana waa ready SSL key aan codsanay waa noola diyaariyey haddaba waxaan sameyn doonaa barta ay ku qoran tahay privacy key waa noola diyaariyey iidan waxaan ku dhufan doonaa show kadib show markaa dhahdid waxa shaqooyinka dhan waan qabanay videoga dhammaadkiisa marayna marka waxaan sameyn doonaa hadda barta privacy key ay ku qoran tahay iyo kuwaan baynu sameyn doonaa carab cusub baa furanaysaa marka waxaan tagaynaa control panel kian tagaynaa control panel markaan tagno waxaan kasii dooran doonaa control panelka uu loading ku sameynaya waxaan ka dooran doonaa SSL noo qor kadib SSL waa kana SSL markaynu ka doorano waxaan sii dooran doonaa barta configure sibida aan marayo climar shaqooyinka oo dhan waan dhameynay marka saa ujeedaan bartii hadda privacy key ay ku qorneed waxaan ku baasti gareyn doonaa waan soo koobiyeynaynaa kadib halkaan ku baasti gareynaynaa aynu soo laabana bartii hadda kadib waan soo koobiyeynaynaa marka wax noo dhiman ma leh wax walba waa iska diyaar everything is ready halkaan aan ku dhaqanaynaa kadib koobi aad dhehaysaa kadib koobi markaa dhahdid saa ujeedid hadda wax walba diyaar control C button ugu soo celi oo configure-ka hadda kadib halkaan privacy key ay ku qoran tahay ku baasti gareynayna control V dheh ha hilmaamin inaa mar walba control V aad dhahdid inaad ku dhufatid upload key anyway haddana waxaa sameyn doonaa bartaan ay ku qoran tahay certificate-ka hoos markaa usoo socotid certificate-ka barta ay ku qoran tahay baynu haddana usoo koobiyen doonaa bartaan certificate-ka baan soo koobiyeynayna certificate-ka markaaynu soo koobiyeyno walaalayaa certificate markaynu soo koobiyeyno waxaan sameyn doonaa iyadana bartii hadda baynu ku baasti gareynaynaa videoyada noocan oo kale qof walba kulama wadaagayo waxaa waaya keliya dadka horumarkaada doonayo ayagana horumarkooda doonayo bisaa kula wadaagayo saa darteed waxaynu imaan doonaa bartii hadda waynu ku baasti gareyn doonaa mar kale markaynu sidaa ugu baasti gareyno waynu jeegareynaynaa saa ujeedid waa ready kadib waxaan sameyn doonaa upload certificate bartay ku qoran tahay waynu ku dhufan doonaa haddaba saa ujeedaan almost shaqooyinka oo dhan waan dhameynay keliya hadda waxaan sameyn doonaa waynu install baynu sameyn doonaa oo wordpress-keeni baynu kusoo shubi doonaa domain-keeni hosting-keenina waa diyaar sidaanu diyaar ku yahay waxaynu ku shubi doonaa domain-keeni baynu ku shubi doonaa waqtiga uu dheeraaday laakiin inaa videoga aad iyo aad uu ku xiisi geliyey baan filayaa anyway waxaan sameyn doonaa haddaba saxaawaye waxaan sameyn doonaa si aan website-kana ugu install gareyno waxaan joognaa gabagabadii videoga si aan website-ka ugu install gareyno waxaan ku dhufan doonaa barta ay ku qoran tahay control panelka waxaan ka dooran doonaa soft closer baan qorayaa oo idin tusi marka halkaan baa waxaan ku qoraynaa soft closer waa kana midkaan baynu ka dooran doonaa marka waan ku dhufanaynaa soft closer kadib gudaha u gali doonaa haddaba akhyaare markaan saa ugu dhufano soft closer-ka wuxuu inoo soo redirect gareyn doonaa bartaani buuna keeni doonaa markuu bartaana keeno waxaan sameynaynaa waxaan ka dooran doonaa wordpress kadibna waxaan ku dhufan doonaa install wordpress wuxuuna keeni doonaa bartaani markaynu install wordpress ka doorano
bartaan buu keeni doonaa. kaliya waxaan sameynayno oo noo haray waa wax iska yar. marka waxaan sameynaynaa inaan username-keena ku buuxsano. marka hore ha hilmaaminaa bartaan aad ka dhigatid https markaynu ka doorano bartaan haddana waan hoos baan usoo soconaynaa admin username-kaada meeshaan waa gashanaysaa. username baan gashani. kadib username markaad gashatid halahaani dib baa u bedeli doontaa. hadhow website-keena markaynu design garaynayno baynu bedeli doonaa. kadib waxaad sameyn doontaa waxaan kulli iska dhaaf adminka username-ka iyo adminka kaliya ayaa buuxinaysaa. oo halkan waan ka tirtiri aniga midkaani hadhow inaan garan waayo laga yaabaa. marka waxaan gelini password aan garanaayo iyo admin username oo aniga aan garanaayo. sidaas baan gashani. kadib install baynu dhihi doonaa. marka aynu isla aragno waan idinka qarsanay markaan xogteyda gashanaayo si for security purpose. haddaba ani xogteyda waan soo gashtay. markaa xogtaada aad soo gashtid kadib waxaad sameyn doontaa kaliya hoos baa usoo jiidaysaa oo hoos baa usoo soconaysaa. kadib bartaan baa imaanaysaa oo install ah. kadib install baa ku dhufan doontaa. once you click install you will see this processki oo installationki baa noo bilowday. website-keeni waxaa lagu install garaynahayaa WordPress. domain-keeni iyo hosting-ki waxaa lagu install garaynahayaa WordPress. waa isla arkaynaa markii la install gareeyo. haddaba akhyaare installation-ki waa inoo dhamaatay. waxaa lagu dhahay congratulation software-kaadii waa lagu install gareeyey. haddaba haddaa halkaa nala soo gaartay oo aad videogana aan nala dhamaysatay ha hilmaamin inaa subscribe saarto channelka haddaa ku cusub tahay. haddii horey aan noola joogtayna like garee videoga si akhyaar fara badan uu u gaaro. videogan oo kale dhalinyaro ka hadlayso Soomaali ah I have never seen maanan arag ilaa hadda. so kaliya waxaan idinkula wadaagayo waxay tahay videogan oo kalena public iskuulama wadaago waa premium. marka akhyaaray videogan qof kale aan la wadaago ma jiro. waa idinka qof walba videogan uu soo gaaray ha hilmaamin inaad subscribe saarto channelka like aad gareyso saas oo kale gambaleelka aad furato si wax walba aynu soo inay ku soo gaaraan. haddaba website-keeni waa diyaar. haddaba akhyaaray waxaan sameyn doonaa kaliya waan koobiyeynaynaa https-kan midkaan baan koobiyeynaynaa. kadib markaan koobiyeysano carab baan furaynaa. kadib tab cusub baan furaynaa. kadib waan ku baasti garaynaynaa. search baynu dhihi doonaa. kadib markaynu search dhahno saa u jeediin wuxuuna keenay halkaan username-keeni iyo waxayna dhan baan gashanaynaa. username-kii hadda aad gashanaysa xagga aad kasoo gashatay halkaan baa gelin doontaa. password-kiina waa gelin doontaa. once you click login waxaa arki doontaa marka in dashboard-kaadii uu ku keenay wixii maanta kulli aynu sameynaynay. SSL-kii waa kana saa u jeedaan. bartaan haddaan idin soo dhaweeyo qufulku waa u jeedaan. website-keeni waa secure, everything is ready. waa u jeedaan dashboard-kii iyo wixii kulli. website-keeni WordPress-ka baynu soo galnay. haddaba website-ka WordPress baynu sameyn doonaa. fadlan haddii videoga uu yahay midkii kugu horeeyay mar labaad iyo mar saddexaad ha hilmaaminaa channelkii kuugu dhawaa aad ka dhigato. saas oo kale subscribe ha saarto biilkana aad ka dhigato.